بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سودو هذا دمان بشدة الصوماليات رجع دمر ميلا كسجن تيمبا وعد سلام شتلمان وطنيقة يبرعو وطنيقة صوماليات وطنيقة bahda midnimo qaran Suudaanka dhalinyarada Soomaaliyeed meelay ku sugan yihiin dhamaan rag iyo dumarba inoo sii shargaray insha Allah taala barnaamijkeenan. insha Allah taala waxaan rabaa inaan caawa bartan ama subaxnimadan imika haddaan soo xortay waayo waxaad la socotaan inaan ku noolahay wadanka Faransiiska. shimbirahaas iga dulciya insha Allah taala kaali ali aad baan ku salaamayaa walaal Allah raxmaanka ha ku karaamayo ha ku sharfo. inta badan qof ila socda baa tahay oo Soomaaliya oo inta badan maasha Allah Soomaalinimada naga dhaxaysaba la shukran ala wajh. anu dalkaygan u dagaalamaa maasha Allah waxaan ahay suldaanka dhalinyarada Soomaaliyeed meel ay joogaan Leila Khaliif. anu qabiil Suudaanimay reer qasaxna Suudaanimay reer qowdina Suudaanimay laakiin soo waxaan ahay suldaanka dhalinyarada Soomaaliyeed xaquudirka runshaaka dhammaan guud ahaan dhalinyarada Soomaaliyeed. ismana faanin doona insha Allah taala barnaamij yar oo kooban baan bartan ku qaban doonaa. marka koobaad waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Soomaaliya meel kasta joogtaanba waan salaamaya bacda salaam. marwo iyo mudanayaal waxaan muuqaal ahaan halkan idinku soo tabin doonaa marka ay waxaan muuqaal ahaan hadda ka hor halkan idinku soo tabiyey markii taariikhdu ahayd 24 bisha oo aan kaga hadlayo xawaalada ama shirkadda Dahabshiil. Dahabshiilna waa taqaanaana waa meesha ummadda Soomaaliyeed lacagta ku xawlato. intaa kadib ummadda Soomaaliyeed horta qofka hadduu runta ka hadlo dagaal gees ka gees oo waliba qabyaaladeysan baa lagu soo qaadaa. anigu qabiilna waxba igama garan, waan soo tukaday salaadii subaxna waan tukaday. Dahabshiilna waxba igama galin. anigu Allah raxmaanka ayaan aqaanaa ee Ghafuur Raxiimka. Dahabshiil down, shirkadaha kale oo dhan down, xitaa Telesom down. cabsaan tamaam lahaan waxa ma dhageystaa soo dhawaada. horta walaalayaal waxaan idin siin doonaa akhbaar ku saabsan maxaa Dahabshiil iyo aniga iyo cabsaan tamaam isku keenay. in badan waa la socoteen sanad iyo sayid waxaan ka hadlayay wadannada Soomaaliyeed. weligeed Allahayba shirkad ma soo hadal qaadin, laakiin se anagu ummadda Soomaaliyeed waxay doonaan baa ku hadlaan qabiil iyo quran iyo waxyaabaha noocaas. anu waxaan ka hadlaa wax allaale wixii kala goynta ama lacag ku bixiyaan ama Allah musta'an dhalinyarada Soomaaliyeed ku dhimanaysa gobolada Soomaaliyeed lacag ku bixiyaan. waxaas oo dhan anigu waxaan ka soo diyaariyaa haddaan ahay Cabdisalaan Jitilmaan warbixinaha ka soo diyaariyaa mana kale haystaba. way shirkaddan ahdo Telesom markii gobolada dhexe joogto saddex magac bay leedahay. mar waxay la baxday Hormuud, mar waxay la baxday numa garan karayo marka ay Puntland meelaha joogto. laakiin waxaan garan karayaa markii uu qooy Hargeysa waxa Telesom bay la baxday. dilin hawiya baa leh. anagu isaaq hawiye daarood degelay mudafli raxan weyn gabooye ciise. wallahi ana Soomaali waan Soomanahay oo bil Ramadaan. wallahi ana kala jeclay ummadda Soomaaliyeed oo dhan waan jeclay, laakiin qabyaalad ma aaminsani. quruna wallahi ma aaminsani. dagaal kasta ay ugu soo baxo way ilaa habeenadan oo dhan Soomaaliyeed saan Dahabshiil u soo hadal qaadayba habar jeclo isaaq walaaladay balaaye baas dagaal baa lagu wadi. war Dahabshiil ma rasuul ilaahay ba soo diray. Dahabshiil iyo shirkadda Dahabshiil waa shirkad yar oo xawaalada oo maarayaan ummadda Soomaaliyeed baa ku xawirtaba. aniguna wallahi oo bilaahi oo tolaad ummadda Soomaaliyeed haddii Allah raxmaanka ay nagu simo waxaan wadaya wiig baan wadaya aniga iyo Dahabshiil bay noqon doontaa. waa shidnaa uu ninka la baxay ee birka soo jeeday halkaasaan banaanka soo dhigay inuu Dahabshiil qabyaaladeysta yahay, inuu reer shaq gar iyo gar darro waliba reer shaq oo dhan ma ahaba. nimanka la sheegaanta
musabixi siinaayo inuu waxaa gar iyo gardarraba ku taageeraba dhaqaalihiisa ma duldhigaba waa ninka la baxay shirkadda dahabshiil waxaa anigaa darcay iyo dahabshiil aniguna cabdisanaan cabdiraxmaan aadan gentleman baane isaguna waa maxamed saciid dahabshiil igama fiicna igama raganimo badna waa odeero gabooyo qabyaalaysta inamadiisuna xaaraan bay cunayaan shirkadda inta la shaqaysay ama isaaq ugu shaqeeya ama daarood ugu shaqeeya ama hawiyo ugu shaqeeya waan naqaana dhammaantiin ama gadhaa dhubar samaysta oo gadheeroo xunoo dhaadheer oo ummadda soomaalida ku khaldaysaan gadhaadheerta ganacsadayaasha garhka dhaadheer leh ee qabyaaladaystayaasha ee aan ka hadlaynin wadaniyada soomaaliyeed wallaahi oo bilaahi oo tallaahi banaankaan soo dhigayna aan wadaniyada soomaaliya xataa maxamed saabaraa waxaan ahaa ruuxani ummadda soomaaliya waxaase ku nacday madaxuna oo gadheero surwaalero gaaban samaystay oo annagaan ka salaad badan ummad horta madaxweynahana waxaan leeyahay halkaasaan fariin u marinaya mudane madaxweyne maxamed ninka la yidhahdo maxamed cabdilaahi maxamed farmaajo bilaahi calaykum nimanka garka dhaadheer oo dhan iska fogey waa qabyaaladaystayaal caadiyaba waxaad soo dhaweystaa mudane madaxweyne saalixyadii qaadiriyadii nimankii soomaaliyeed ee saxda ahaa haddaad doonaysid waayo soomaali waxay u baahan tahay ummadda soomaaliyed waxay tahay reerbaa waxay qabsanayaan allahu mustacaan waxay samaysan doonaan waxa la yidhaahdo allabari oo la isugu soo dhaweynayo reerka ama ummadda soomaaliyed waxay tahdaa beel hebla beesha daarood oo kale beesha isaaq oo kale beesha allahu mustacaan hawiye oo kale beesha waxa la yidhaahdo raxanweyn oo kale degile midhafla daarood urulahi anigu waxaan halkan ay saariyeen all of them I'm Somali I love you so much qabyaalaystayaasha ma jecli daarood baan ahay hawiyaan ahay raxanweyn baan ahay degile midhaflaan ahay garhaan ahay raxanweyn baan ahay gabooyaan ahay ciisaan ahay ummadda soomaalida oo dhan baan ahay soomaali haddaan marka maanta kudha tolaaye daarood baan ahay waad soo badan lahayd dalkana in badan baa ka daawan lahayd haddaan odhanaa tolaaye isaaq baan ahay wallahi waa soo badan lahayd laakiinse idinka laftigiinu ummadda soomaalida bilaa ficil baa tihin bilaa qadiyad baa tihin waayo waxaa ka heshaan tolaay daarooday tolaay isaaqoy tolaay waxaan kalow madaxweynaha waxaan leeyahay suma doonaysa inay soomaaliya hagaagto culimadii soomaaliyeed shargaraya culimadii soomaaliyeed ee saxda ahayd ee ahayd qaadiriya iyo raxaweyn qabiil ma kala laha waayo waqooyi bay joogaan koonfur bay joogaan anu waxaan ogahay waa kasoo qayb galay meesha la yidhaahdo new magaceeda maxay meesha marka caynaba yaryari jirta wallahi daarood bay leeyihin oo isaaq bay leeyihin oo hawiyey leeyihin oo allahu mustacaan gar dee nimanka la yidhaahdo nimankan meeshan dega jijiga dee waa daarood waxaas oo dhan bay leeyihin qudbigaasay wada joogaanoo timoweyn ama timoweyn ha noqdan ama timeer ha noqdan anigu igaabaan ka mid ahayba weliba waxay joogaan walaalayaal macaynaba wadaamago ay ku leeyihin meesha la ari cadeyna waxay ku leeyihin xarun bay ku leeyihin way wada joogaan ismaaco waxaan kale ee yaro oo dhan ee gadhaka dhadheer samaystay waa saalixi waxay leeyihiin allahu mustacaan waxaa la yidhaahdo masaajidada sooma galaan waxay leeyihin ii sheega salafiya xanafiya balaayiya baas xanafiya moolana madhab wax kaley leeyihin oo fara badan mudane madaxweyne qarankan haddaad rabtid inay guulaystaan sidii madaxweyneyaashii kaa horreeyay xitaa ina cigaal maxamed xaaji ibraahim cigaal mudane madaxweyne maxamed abdullaahi farmaajo run baan kuu sheegaya ina cigaalkii xitaa waqooyigan mar madaxweynaha ka noqday waxaan oo dhan u sameeyey musabixiina waxba kama ahayn silaana waxba kama ahayn daareelana waxba kama ahayn musabixiina hadalkiisa badaaba wallahi wuxuu urursan jiray timoyinta nimankii timoyinta jaamaca argeysa joogay kuwa mudane madaxweyne intaad u yeedhatid madaxtooyada allabaray ugu samey waa daacad xitaa kuwa jooga meesha la yidhaahdo allahu mustacaan ahlusuma waljamaaca waa daacad waayo ama maxaa waxaan odhan waxay laakiin daacadkiin qabiilna ma nabqa qabiil iyo waxa laakiin kuwa yaree gadhaka dhadheer samaystay ganacsadayaasha daacad ma kasoo horjeeso adagana waxaan ku leeyahay mudane madaxweyne waxaa naga ilaali annagu kuwaasaan jecel ummadda soomaaliyeed dhan way jeceliin intaas waxa weeyaan maasha allah waa inta yar aan ugu horreysiinayo haddaba walaalayaal waxaan rabaa inaan bartan idinka soo gudbiyo warbixin ku saabsan weliba dahabshiil shirkadda dahabshiil ee noqotay qabyaaladaystaha ee maanta taageersan musabixi iyo maxamed kaahin iyo dagaalka lagu qaaday
gobolada sanaag iyo sool iska ilaaliya ummadda soomaaliyeeday inta yar baan isoo gudbin doona insha allahu tacaala kamana hadhi doonaba. Okay, warbixin ku saabsan shirkii dhex maray mudane madaxweynaha Muuse Bixi madaxweynaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Somaliland waliba ninna madaxweynimadiisa dadku ismadiidayba saloo socotay ummadda Soomaaliyeed waxa ka dhacay shir meesha la Hargeysa madaxtooyadeeda. shirkaas ayaan idin soo gudbin doonaa insha Allah tacaala. warbixin ku saabsan shirkii dhex maray madaxweyne Muuse Bixi madaxweynaha dowlad goboleedka Somaliland ee halkaas isugu yimaadeen rag iyo dumar magac iyo muuq ama maamuus ku leh ganacsatada Soomaaliyeed kuwaas oo lacag malaayiin dollar ah Allah musta'an ku ballan qaaday dagaalka sokeeye ee ka aloosnaa labadii usbuuc ee u dambeeyay koobo kamid ah gobolka Sool kaasoo galaaftay 100 dhalinyaro Soomaaliyeed ah. wadagaalkii ka dhacay Tukar ama gobolka Sool ama Sanaag kaasoo galaaftay 2 beelood oo walaal ah isir wadaaga indiga xaalada Soomaaliland rag magac iyo muuq ka tirsan ganacsatada Soomaaliyeed kuwaas oo lacag malaayiin dollar ah ku ballan qaaday dagaalka sokeeye ee ka aloosnaa labadii usbuuc ee u dambeeyay goobo kamid ah gobolka Sool kaasoo galaaftay 100 dhalinyaro Soomaaliyeed ah oo kasoo kala jeeda labada beelood ee walaalaha. labada beelood ee walaalaha waa Isaaq iyo Daarood masha Allah ee surwadaaga ee wadaaga ee Isaaq iyo Harti. waa Isaaq iyo Harti waa laba beelood oo walaalaha. kadib warbixintaas baa waxa ka dhashay in dad badan oo Soomaaliyeed oo dhakafaar ku noqotay ama ummadda Soomaaliyeed dhakafaar ku noqotay in mulkiilaha caanka ah lacagtiisu ka soo xarooto xarumaha maalgashi ee dhammaan uu ku leeyahay geyga Soomaaliya. dadkii Soomaaliyeed soo caayib waa ummadda Soomaaliyeed wax ku noqotay dhakafaarba waa ninka la hadda Daabshiil oo lacagtiisu ka soo xarooto dhammaan guud ahaan meelaha ay degan yihiin ama goobaha ama dhulka ay ku nool yihiin ummadda Soomaaliyeed. dhammaan geyga Soomaaliyeed ay ka soo xarooto xarumaha maalgashi uu dhammaan ku leeyahay geyga Soomaaliyeed. Maxamed ninka la yiraahdo Daabshiil inankiisana uu yahay shirkadiisa xogayaha guud ama Allah musta'an manager guud Cabdirashiid Daabshiil uu malaayiin dollar ugu deeqo shabahad kamid ah ama qayb kamid ah labada maamul goboleed ee uu kala hogaaminayo dagaalka sokeeye ee ka dhacaya meesha Tukar isagoo waliba caawinaya maamulka la yiraahdo waqooyi galbeed ama Hargeysa ama Somaliland hadba soo taqaanaan. nasiib wanaag waxa la ii soo diray oo hadana Cabdisalaan Jitmaane way maalmahan oo dagaal bay ku socday. nasiib wanaag ana waxa la ii soo diray 27kii bishii shanaad 2018 gacanteedana soo galay muuqaal laga duubay isagoo afkiisa ka sheegay lacagta uu bixinayo waa ninka la Daabshiil. hadana Cabdisalaan Jitmaane nasiib wanaag waxa la ii soo diray 27kii bishii shanaad ee 2018 gacanteedana soo galay muuqaal laga duubay isagoo afkiisa ka sheegay lacagta uu bixinayo baan idin soo bandhigay. marka Soomaalidu soo wada toosto si aad idinkuna indhihiina ugu aragtaan kadibna go'aankuna waa dhankiina ummadda Soomaaliyeed aad go'aan uga qaataan kadibna go'aanka ummadda Soomaaliyeed aad uga qaataan ajiradaha la soo diray. waayo hadda koor anigoo beejin ka hadlaya waxaan ka hadlay shirkadda la yiraahdo Daabshiil. haddaan ahay Cabdisalaan Jitmaane anigu qabiil ma danayo shirkadna ma danayo. Hargeysa laga soo diray waxa laga soo diray meesha uu lacagta ku bixinayay muuqaalkeedii baan hayaa. waxaan hayaa Allah musta'an cadeynteedii baan hayaa. qabiil waxba igama galin dagaalka la Tukar sidoo kale ummadda Soomaaliyeed isagoo shirkadda la Daabshiil ummadda Soomaaliyeed ka dhex shaqeysata
hayb kastoo Soomaaliyeed ka dhex shaqaysataan iyagoo lacag ku bixinaya inaga raali hada insha Allah taala wararkii ugu dambeeyay caawan siin doona ay ka soo kordhay meesha la yiraahdo Laascaanood inaga raali hada hadad beniga moodaysan horta waxa maanta Laascaanood ka dhacay waad ogeedin hablaha Soomaaliyeed ama haweenka Soomaaliyeed daabshiilow ama inanka Geerad Cabdirashiid maxaa la yiraahdaa Maxamed Saciid Cabdirashiid daabshiil baraha laakiin inamada reer u shaqeeyo waan ogeey ama Ingiriisi kala soo hadla ama Faransiisi kala soo hadla ama Australia kala soo hadla waran la ilaaha illa Maxamed Rasuulullah umada Soomaaliyeed Allah raxmaan ka bana qana hadii ay shidaan u siisan jirteen waa hawiye waa daaro waxaan idin cibi anigoo isaaqayso ayaa maanta sirtiin soo gaadhay aniga idinkin xigaba umada Soomaaliyeed dhaxad wati waxaad doonaysaa waliba hay'ado fara badan aan lacag ku bixisay Soomaaliland kariga daraba hala aqoonsado daabshiilow iyo shirkadda adeer xunee cawaanka umada Soomaaliyeed wax jirta amal baa jirta wax jirta tawakkal baa jirta wax jirta taash baa jirta lacagtina ku dirsada aniga daabshiilow meeshan iska soo dhacno waa ka doontaa in badan aan ka roreegin wadamada Soomaaliyeed akhir alla dul taagnay daabshiilow adiga inaan ka geeree aan umada Soomaaliyeed u naxariisanayn anagu maxaan Soomaali baan ninka Soomaaliga ah hadda dhulbaanta soo leeysid hadda umada lacag u adeegsatay taado Soomaaliland ma gariga darla aqoonsanaya anaguna maxaan aniga marba qof yar hay soo dirin wala hay soo dirin tolo hay soo dirin sharciyan kula baxayna waxaan ku kala baxaynaa oo aynu ku kala bixi doona dhalinyarada Soomaaliyeed ama umada Soomaaliyeed baa noo garnaq doontaba lacag baad sheeganaysaa anaguna waxaan sheeganay qabka Soomaaliyeed waxaan ahay wadaniga Soomaaliyeed waxaan ahay Suudaanka guud ee dhalinyarada Soomaaliyeed nin kasto qabiiliya aniga ka qolaaday lacag adeegso waxaad inta adeegso daabshiro anaguna Soomaali oo dhan garre daarood isaaq raxan weyn digle midafle gabooye ciise samaro intaas oo dhan baan adeegsanaya aniga ka qabiilada hada lacag haysatid anigana Allah raxmaanka Faransiis baan ku noolahay umada Soomaaliyeed bay barbar taagan wallahi oo billahi oo talaa waxaan soo bandhigayaa step by step adiga inaan keera ku shaqeeyo shaqaalaha iyo xumaantaadu wadidee umada Soomaaliyeed u turaysa misaaq wad u turaysa ma daarood u turaysa lacag baad ku bixinaysaa gar iyo gardarraba muuse bixiyaysa ha ku helaan waxa la yiraahdo aqoonsi de ka yeelimeeno anaga ka yeeli war maxaad ku xidhay dumarkii maanta Laascaanood ku mudaharaadii umada Soomaaliyeed umada Soomaaliyeed baan lagu barbar taagan oo la hadlay umada dhamaantii shargareeya billahi alaykum oo meel kastaba ka tuura shirkadda la hada abshil idinka wax ku dirto anu lacagna kuma dirto mana aqaan waxana igama galin daabshil oo quran la hadlay habar shana aniga isaguna waa habar jeclo isku haybaanay habar jeclo hadaan nooy ma aha inaan hawiyo wax yeelno ma aha inaan daarood wax yeelno ma aha inaan digleem dhaflo wax yeelno ma aha inaan gabooyo wax yeelno ma aha in mid ka dheer loo soo adeegsado anu ka dheer oo dhan ka soo jeedaba down oo ka dheer umada Soomaaliyeed maxaa qootay maanta waa ogtino Laascaanood meesha la yiraahdo dumar baa ka mudaharaaday waa haween waa hooyooyin waa tima dheer waa hablaha eegi waa daraawish alla hadaayo waxay ka soo horjeesteen maamulka goonigost 20 dumar baa xiran oo ku xiran meesha Laascaanood oo lacagta lagu xidhxidhayo oo baashani kala baasha Xasan Cabdi iyo ninka la yiraahdo ii sheega umada Soomaaliyeed faratoon iyo ninka la yiraahdo ii sheega ninkan la yiraahdo Cali Khaliif Galeed iyo maafiyada oo lacagta ay sidataa waa lacagta uu horumarka u soo bixiyay daabshil iyo ninka la yiraahdo inuu sicid waliba inuu sicid ma naqaanba daabshil lacagta ku keenaa aniga habar jeclay hiida road walahi inaan telefoon ka qabanin walahi inaan walaalo qon walahi inaan sii dooqon anigu Soomaali oo dhan ma naqaan daabshil ninka la yiraahdo lacagta ku soo bixiyay idinka ka jawaabi doonaba aniguna cadeyntan soo dhigaya meeshuu lacagta ku bixiyay kalabiyadii baan hayaa ciduu siiyay risiidkeeda wuxuu dhan banaanka soo dhigi doona insha Allah taala horta meesha Laascaanood waxa ku xidhan 20 dumar 20 haweena oo ku imaanta Puntland taageersanay calanka state adarkiisana maamulka Ereer Hargeysa Soomaaliland tii waxa ka soo horjeeday waxa lagu xidhay meesha Laascaanood isla caawi xidhin oo haweenkeena waa la xidhay isla iska daashanay 10 milyan gaabta wuxuu bixiyay 6 milyan buu bixiyay oo lagu xidho dumarka Soomaaliyeed iyo bulshada reer Laascaanood waxa bixiyay daabshir 6 milyan buu bixiyay waliba hay'adu la adeegsanaya oo leeyahay
قرية كرتربة أقونسك السومالان أنا قصو قاضي بل دابشيرو إنه عقال بس سوق قاضي كروي سلايا سو ورمحاك هذا دابشيرو هيدا يوين كيو وحيوانو عاصو لك عشان يحولي أنا سوق قاضي إن أقونسك هذا السومالان حاس السومالان ككلي السومالان بالعكس ما دتك يعني حتى كونوا أوبر حوسنا إربان هوية مدة صومال أنا هوية وانش علىها وتدخيلي مربوح كوالا هراب وتدخيلي هبرجر وتدخيلي أبجر وتدخيلي مو قلقوني قصب دارنو وتدخيلي إساقنو وتدخيلي وحدونا يعني كلا هذا أبشيل إن صومال لك لا شربة هيدهن حنحنا ببادك سنة حكولية دقالان كوب حنيا صومال وحا وروح العقل هذا جنة سكنا إلى عليا وقبيلة النمبر 1 قبيلة استوى كيس الدنيا هي وريسيست ومدة الصوماليات بكرة شرية دقالوا كوب حنيا ومدة الصوماليات ويروحوا والعكس هنا يعني انترناشونال كوميونتي كوحنا والدولة حسن الشيخ محمود بقول لك شقيسي حسن الشيخ محمود على هداي ويقولي الانترناشونال كوميونتي جاي أول بانك والعكس صورة الدعبشيل مدحوين محمد دراي فرماتنا برتي بكسوق هذا كسيق هذا مدحوينه كastoo Soomaali yimaada ama hawiyaha noqdo ama daarood ha noqdo intii ugu dambeysay hawiyada daarood ay soo beddelay ilaa Cabdilaahi Yuusuf ilaa Cabdi Qaasim ilaa Xasan Sheekh Maxamuud ilaa Sheekh Shariif ninna kaamu soo horjeesan banaanka soo dhigtay oo maanta markii uu yimi farmaajo halkan la musabiximi awal horba silaaya joogay ee qabiyaad toos shaarka la baxday adiga yana kaaga yar waan naqaana waan kaashina waan kaasqina wallahi guriga yare kubadda cagta dabadiisu ku yeelan ku jiri doona وإن شاء الله تعالى واجي بري هدي له كدقو هل كاسن هوش كودنا إن شاء الله تعالى أنا نبصب أنا بناك صوري جد وأنا بقى سخير عليه الشركة ده هذا أبشر قفنا هاي صدرنا أنا حتى خلتنا هاي فرنسيس بنكون لو يرقب صو وحتى هذا الشيطان وسيبان لو يرقب صو عدين تيجان برتا صوري جاي أنا قف يمس صدري كتير شركة ده أبشر qofna anigu Soomaali baan ahay dadka degan Soomaaliya sanad waa dadkaygii kuwa muqdisho degan waa dadkaygii aan isugu nimaan almeedaan waasac ummad dhalinyarada iyo wadaniinta Soomaaliyeed dhamaantiina xogtana aan idin soo gudbin doona cabsaajid maanta telefoonkiina waa idin sheegay beenbo bartay iyo maalayani iyo laga barbaray iyo marba qof soo dir iyo mid yaro wadaaday soo dir ima soo diri kartid walaalkay la haday in Cabdi Aadan Maxamed Cali Rabaan wana miskiina bartiisa iska jooga suga haddana cadeyniga baahantiina ana idin soo dhigay idinkuna qof kasto Soomaaliya barta kala dagaalan shirkadaas toos bay uga qayb qaadatay dagaalka ka dhacay meesha la tukaraq ee ummadda Soomaaliyeed ku leeyahay lacagna wanaag ka qaadaysa meel kastana waxay la taagan tahay shirkad baanuna dhexaad ma had dhexaad waa qabyaaladeysta akbar musabix buraa waa nambarkii waa eber saddex todoba shan saddex sagaal saddex shan eber hal afar waxa weeyaan eber waa Faransiiska saddex todoba shan saddex sagaal saddex shan eber hal afar هذا بمسنت شركة لهذا أبشيل دجالك ما أنت كسرت تكرر يجا لعكت جوب بدن بحناية قريب كتاعي يجوا مت الصومالي الله شقي سنايا إن شاء الله تعالى وحيد دمبنا أنا قا بنان كسر جدونا هذا عبسان تمنا هاي أدو مسنتين نورادا أمت الصوماليات كل يجوا بنيمو شركتها عنصرية أما دابشيل عن نقطة أما بلايا كلها نقطة واربريدو يتوح كل سنة تلصم وضع شركة لهذا رمود markay joogto meesha la yiraahdo golis balaha markay Puntland ama Boosas joogto waa dagaal qayb kama aha markay Hargeysa joogto waxa Telesom balaha markay koonfur joogtana hormuud balaha laakiin ka daabshil la baxay wuxuu kugu soo diray xitaa niman gadha dheer oo ganacsiyaal oo hayb kasta balaba waa balaaye baas insha Allah taala cadeyntiina waan soo dhigi doonaa aad buu ma santiin wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh